baha hay adig dhaxsoo saxeexo iyo maa buuku muqolayaan jaamuka intaas adiga ku qabtaa marka soo baxaysa subaxdii oo kale waalidka maxay ku dhahaan ilaahay ha ku nabadgeeyo waa caruur u heelan inay wax bartaan waxay ku sugan yihiin dugsiga Al-Mustaqiim caruurtan ayaa isugu jira danyar iyo agoon iyaga oo wax ku barta khidmad lacageed oo laga soo aruuriyo walaalo muxsiniin ah kana waxaan la joogaa qaar kamid ah ardayda wax ka barata galaaska shanaad iskuulka Al-Mustaqiim Foundation ardaygan oo kamid ah ardayda waxa uu ii sheegay in markaasi Kaaraan uu degan yahay halka iskuulka ku yaalana oo ah Yaaqshiid waxa uu sheegay in masaafo aad u balaaran markaas uu soo socdo xilliyada qaarna ay suurtagal noqoto xitaa asaga oo soo dhaqsaday in markaas xiisada uu soo gaari waayo waxa uu sheegay in uu ku dhib qabo wadada oo xilliyada qaar cariiri ah isla markaana uu san haysan bas gaar ah markaas uu iskuulka leeyahay waxa uu codsanayaa in markaas loo iibiyo bas markaas iskuulka si ay ugu soo gaaraan walaalaha waxa lagu garanayay in markaas ay iscaawiyaan isku gargaaraan isla markaana ardayda Soomaaliyeed ee markaas hamiga iyo himilada leh ay markaas u hirgeliyaan waxaan rajaynaynaa filashadooda iyo tabashadooda ah in markaas si ay helaan gaadiid u gaar ah iskuulka ku soo gaaraan inay heli doonaan hadduu Rabbi ka raali noqdo ardaygan ayaan markaas wax ka weydiin doonaa sida markaas tabashada iyo filashadiisa ay tahay magaca macaad hay xagee degantaa degmada Kaaraan deganta maxuu noqonaa marka codsigaada ku aadan in adigoo iskuulka Al-Mustaqiim dhigta aad heshid in markaas gaari liidin iibiya rabta qaar kamid ah caruurtan waxay qabaan dhibaato ah in aysan gaarin halka iskuulka ku yaalo oo aad uga fog waxay ardaydan walaalaha Soomaaliyeed ka dalbanayaan inay ka qayb noqdaan qorshe bas loogu iibinayo ardaydan oo isugu jirta danyar iyo agoon oo haatan wax ku barata fursad ay u abuureen walaalo Soomaaliyeed oo muxsiniin ah a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim innaa a'daynaakal kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shaani'aka huwal abtar Saddam wuxuu kamid yahay ardayda wax ka barata iskuulka Al-Mustaqiim Foundation Saddam iyo ardaydan kale ee aad arkaysaan waxay isugu jiraan arday danyar iyo sidaas oo kale kuwa agoon ah isla markaana si markaas bilaash ah ama lacag la'aan ah ay iskuulka Al-Mustaqiim markaas uu iska xil saaray in markaas uu wax ku baro caruurtan aad arkaysaan sidaas oo kale waxyaabaha ay wax ku bartaan waxa kamid ah khidmad markaas adinka lidinkaga soo aruuriyay isla markaana u soo martay Al-Mustaqiim Foundation tani waxay qayb ka noqonaysaa markaas guulaha aad arkaysaan in aad gaarteen ardaydan maanta waxay dhiganayaan galaaska 8aad sanadkani waxa ay diyaar u yihiin markaas in ay galaan imtixaanka shahaadiga ah Al-Mustaqiim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa